مقديشو 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 سيدا ميراها لولكا موجدها بدوينتا بسم الله الرحمن الرحيم داوديال kusoo dhawaada barnaamijkeena muqdisho iyo maanta oo hadahan oo kala aad ka daawataan Home Cable TV toddobaad walba barnaamijka ayaa waxaan ku soo qaadan doonaa dawladda Turkiga oo iyadu in fara badan caawinaysay bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho ee xarunta wadanka Soomaaliya iyo guud ahaan qaybaha kala duwan ee Soomaaliya iyadoo sidoo kale dawladda Turkiga meelo fara badan ka dhistay gudaha magaalada Muqdisho wadooyinka iyo isbitaalada ku yaala gudaha magaalada Muqdisho hadaba waxaan u kurgaleynaa sida shacabka Soomaaliyeed ay u arkaan isbitaalada dawladda Turkiga ay sameysay iyo sidoo kale iskuulaadka ka jira gudaha magaalada Muqdisho ay sameysay dawladda Turkiga hadii ay yihiin kuwa lacag laga qaado iyo hadii ay yihiin kuwa markaasi iyagu si bilaash ay ugu tala galeen bulshada Soomaaliyeed Muqdisho مقديشو مقديشو سيدا ميراها لولكا موجدها بدوينتا dawladda wadanka dalkaasi Turkiga ayaa Soomaaliya waxay u soo gaartay si saaxiibtinimo ah kadib markii xiriir wanaagsan oo dhaxmaray labada wadan ee Soomaaliya iyo Turkiga waxaana wadanka Turkiga Soomaaliya uu ka bilowday dadaalada ugu soo celinaya bilaada magaalada Muqdisho sidoo kalena waxbarasho gudaha iyo dibaddaba siiyay kumanaan arday Soomaali ah kuwa oo qaarkood gudaha dalka wax ka barta qaarka kalena ay gaareen wadankaasi Turkiga waxaana dhowr jeer caasimadda Muqdisho soo gaaray madaxda sare ee wadanka Turkiga Muqdisho 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 مقديشو سيدا ميراها لولكا wadahadalo dheer oo dhaxmaray madaxda labada wadan ee Soomaaliya iyo Turkiga ayaa waxa dawladda Turkiga ay ka bilowday Soomaaliya dhismaha wadooyinka Muqdisho kuwaas oo aan 20 sano ee ugu dambeeyay wax dayactir helin waxaana sidoo kale ay sameeyeen iskuulo kuwa oo ay wax ka bartaan arday fara badan oo Soomaali ah hadaba Home Cable TV ayaa u kurgalay waxqabadka Turkiga oo inta badan lagu macneeyo tabarucaad in arrinkaasi uu yahay mid dhab ah waxaana diiradda saari doonaa in iskuulada wax lagu barto ee Turkiga ardayda dhigata laga qaado lacago iyo in si bilaash ah ay wax ugu baraan bulshada Soomaaliyeed iyadoo dhanka kale ay jiraan isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho oo Turkiga ay gacanta ku hayaan sidoo kalena aan doonayno inaan u soo gudbino bulshada Soomaaliyeed in dadka soo gaara lacag laga qaado isbitaalada iyadoo ugu dambeyn aan wax ka weydiin doono wasiir ku xigeenkii hore ee arrimaha bulshada Maxamuud Macallim Yaxye haatan ah wasiiru dawlaha wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaana wasiirka weydiin doonaa sida uu u arko maadaama heshiiska hore uu la socday in dawladda Turkiga ama hay'adaha gaarka ee ku sugan wadanka Soomaaliya sida tabarucaadna u yimaaday gudaha magaalada Muqdisho hadii arrinkaasi uu dhab yahay iyo hadii ay jiraan lacag laga qaado bulshada iyagu markaas adeegyada kala duwan ee isbitaalada iyo waxbarashada uga baahdo goobahani Muqdisho 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 سيدا ميراها لولكا موجدها بدوينتا qaar kamid ah waalidiinta iyagu caruurtooda ay dhigtaan iskuul ay maamusho hay'ad Turki ah oo ku yaala magaalada Muqdisho gaar ahaan halka loo yaqaan dugsiga hore ee farsamada ayaa waxay ii sheegeen qaar kamid ah waalidiintaas oo iyagu diiday in la isticmaalo codkooda iyo muuqaalkoodaba in laga qaado ilmahooda qofkiiba lacag gaaraysa $1700 Mareykanka sanad dugsiyeedkii waxaana sidoo kale jirta in arrintani marka hore ay tabarucaad hadsa ahaatee markii dambe lacag ay isu bedeshay sidoo kalena sanad kasta lagu kordhiyo lacag hor leh waxaana ay sheegeen inaysan xamili karin ardaydoodana ay la jecel yihiin waxbarasho sidaas darteed ayna ku qasban yihiin in lacagtani ay bixiyaan Muqdisho 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 dhismahani waxa
dambeyn aan wax ka weydiin doono wasiirka xigeenkii hore waxaana lagu magacaabi jiray dugsiga hore ee farsamada maxamuud macalin yaxye aan laga dhisin iskuulkani wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha iyadoo halkaasi maciinbiday wixii ka dambeeyey 1990kii hore markii ay burburtay dowladii dhexe maxamuud siyaad barre waxaana halkaasi ku noolaa kumanaan dad Soomaali ah oo iyagoo halkaasi hooyay u ahayd dowladda Soomaaliya ayaa ka kaysay dadkani halkan waxaana dayactir xoog badan ku sameeyay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Turkiga Rajab Tayyip Erdogan xilligaasi oo dowladda Soomaaliya ay ku wareejisay wadanka Turkiga si wax loogu baro dadka aan awoodin waxbarashada lacagta ah waxaana ra'iisul wasaaraha dalkaasi Turkiga uu ku wareejiyay hay'ad Turkiga taas oo iyadu sheegtay inay si bilaash wax ku barayso dadka dhibaataysan dhowr bilood oo waxbarasho bilaash ah ay ka socotay halkaasi ayaa waxa ugu dambeyn arrinkan uu isu bedelay in lacag laga qaado waxaana dad fara badan ay awoodi waayeen inay iska bixiyaan iyadoo laga dhigay lacag gaaraysa 800 oo lacagta Mareykanka ah sanad dugsiyeedkiiba waalidiin fara badan oo ilmahooda la jeclaa waxbarashada ayaa iyagu ka niyad jabay iyagoona garan waayay meel ay kaga ashtakoodaan maadaama aysan awoodin inay gaaraan xafiisyada madaxda dowladda halka qaar kalena iyagu dhaxda u xirteen si ilmahooda ay wax u baran lahaayeen iyagoona xilligaasi cabasho ka muujinaya lacagta faraha badan waxaana isi soo taraya lacag ku darista sanad waliba lagu darayo barashada iskuulkani Turkishka ah oo lagu magacaabo Turkish Nail Academy waxaana ugu dambeyn la gaarsiiyay lacagta lagu bartay iskuulkaasi 1700 oo lacagta Mareykanka ah taas oo sababtay in waalidiin fara badan ilmahooda ay ka saaraan iskuulka uuna noqdo mid ay wax ku baran karaan kaliya dadka jeebka roon iyadoona markii hore ay ahayd waxbarasho bilaash ah maadaama dhismaha ay u bixisay dowladda Soomaaliya si wax loogu baro dadka Soomaaliyeed ra'iisul wasaaraha dalkaasi Turkigana dayactir xoogan uu ku sameeyay halkaasi ra'iisul wasaaraha dalkaasi Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo isagu soo gaaray magaalada Muqdisho ee xarunta wadanka Soomaaliya ayaa sheegay in adeegyo kala duwan oo lagu saacideeyo bulshada Soomaaliyeed ay ka hirgelinayaan Muqdisho iyadoona ay xusuus mudan tahay inay jiraan iskuulaad wax lagu baro agoonta oo ay hirgelisay dowladda wadankaasi Turkiga meeshan iskuulkii hore Sheekh Suufi la dhigi jiray waxa ku xareysan ciyaal agoona wax lagu baraa sida oo muxuu ahay lacag la'aan bilaash ayaan wax lagu baraa wajiifi cunto iswato hay'ad waqf diyaana la yiraahdo ayaana maalgelisa oo hoos tagto arrimaha diinta Turkiga hay'ado kale oo fara badan ayaa jira ayagana saas oo kale agoon magaalada ku haya oo runtii ayagana saas oo kale oo bilaasha oo qoodiya waxna ku bara laakiin xogta aan ka hayo meesha 15 October runtii in lacag fara badan laga qaado waan maqla waana ka warhayna runtii arrinkaas waa jira lacag badan laga qaada lacagtaas lacag runtii aad u badan way marka loo fiiriyo duruufteena dalka Soomaaliya ma aha nimada badan wax badan oo adeegayso dadka masaakiinta laakiin Ilaahay wax siiyay ayaa laga yaabaa inay ka faa'iideystaan laakiin warkaas waa jira lacag badan waa laga qaadaa runtii manhajka ay dhigaan hadda waxay weydiis manhajkaas waa manhaj u gaar ah ayagu la yimaadeen afka Ingiriiska wax ku baran awlaadda meesha Ingiriiska ku baran iyo afka Turkiga labadooda ku baran marka habasho badan waa arkay oo dadka ka cabanayaan waa jirtay bariga aan joogay in la yiraahdo wasaan sax ma ahna waxa laga bedelo arrinkan ma awoodi kara midda lacagta laga qaaday waxa ugu maqaalaha oo aan ka wareystay qaar kamid ah waalidiinta ay sheegeen in ardaygu laga qaadan lacag gaaraysa $1700 oo markaas baa sanad dugsiyeedka ama 6 bilood ilaa 8 bilood $1700 arrimahaas marka iyo sida kale jirta in tabarucaad lagu sameeyo ma jirtaa in marka hore tabarucaad ahaan iskuulkaasi loo furay magaalada iyagu ay lacag ka dhigteen waa in la ogaado lacagtaas waa suurtagal waa wax runtii la bacaysanayna ma ahan hadda lacag $1700 lacag aad u fara badan waay hataa dadka barto oo masterki iyo doctoraha PhD da diyaari hataa umaleen maay in sanadkii intaas ay bixiyaan runtii ma ahan aan isleeyahay adeegi oo loogu bartay dadka Turkida ma ahan hadii warkaas uu jiro aan xilligan ogaa waxa la dhihi jiray 800 ilaa 1000 lacag u dhaxaysa ay sheegi jireen laakiin hadda 1000 kala lagu daray hadda hay'ad 700 lacag yar ma ahan waa 1000kii kale waxa ka dhiman lacag yar ka dhiman laakiin waxa xaqiiqo ah markii hore sifo oo gargaar nimankaas ay ku yimaadeen waa hay'ad
oo gaar loo leeyahay oo dhinaca samafalka ka shaqeysa runtii mana ahan dawli ma ahan gaara loo leeyahay marka waa laga yaabaa inay fikireen oo qaab muqdisho muqdisho magaalada madaxdeena muqdisho magaalada madaxdeena muqdisho waxyaabaha sida weyn ee bulshada Soomaaliyeed ugu xasuustaan wadanka Turkiga ayaa waxaa kamid ah dhismaha wadooyinka Muqdisho oo wali hawshooda ay socoto iyo dhismaha isbitaalka weyn ee Digfaar kaas oo markii aad gashaba aad u malaynayso in aadan joogin magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba Afrika marka aad milicsatana sida quruxda badan ee loo dhisay isbitaalkaasi uu yahay mid aad iyo aad u heer sareeya dhismaha dawladda Turkiga ay sameysay ayaa waxaa kamid ah dhismooyin ay ka sameysay madaarka waxaana kamid ah xeyndaabka loo sameeyay garoonka diyaaradaha oo ay qandaraaskaasi qaadatay shirkad lagu magacaabo IBCO oo xilligaasi ay wada dhisayeen halkaasi shirkadda la yiraahdo Tika iyagoo u dhisay dhismahaasi darbiga ah iyagoona dhisay dhismaha darbiga wareega ah ee iminka ku xeendaaban yahay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho waxaana bilowday duulimaadada diyaaradda Turkish Airways ee laga leeyahay wadankaasi Turkiga ay ka sameynayso gudaha magaalada Muqdisho taa oo wiig kasta 2 maalin ama 2 cisho soo gaarta magaalada Muqdisho ee xarunta wadanka Soomaaliya iyadoona xilligaasi munaasabad xariiq jaris ah oo uu ka qayb galay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Turkiga iyo sidoo kale madaxweynaha xilligaasi talada hayay Shariif Sheekh Axmed lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho 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 magaalada madaxdeena muqdisho magaalada madaxdeena muqdisho dhanka kale waxaa jira in isbitaalada dhowr ah ay ku yaalaan magaalada Muqdisho kuwaas oo ay gacanta ku hayaan hay'adaha Turkiga qaar kamid ah hay'adaha Turkiga waxaana jira in baahiyo fara badan oo dhanka caafimaadka ay haysato Soomaalida waxaana kamid ah isbitaalka ku yaala dugsi sare ee Banaadir waxaana halkaasi gaaray wiil dhalinyaro oo isagu ii sheegay in laga qaaday lacag gaaraysa $350 Mareykanka ah muqdisho muqdisho magaalada madaxdeena muqdisho magaalada madaxdeena magacaygu waa Cubeyd Ciise Maxamed intii muddo ayaantaana waxaa iga xanuunsanaa nin awowgay oo waayada madaxa ayuu ka sheeganayay sidiisa kale ugu roonaa laakiin madaxaas kaliya problem ah ahay waxaan u geeyay niman Turkiya meeshan oo simaamad la dhaho waxaan soo saaray computer oo madaxa ah computerka madaxa ah iskankaas waxay iga qaateen lacag gaarayso $250 oo iskanka kaliya ah warqad ay soo qoreen warqadii dhakhtarna u geeyay daawo oo $100 ah oo igu soo qoray asna aniga markii hore kuwaas Turkiyaas waxaan u aaday information waxaan haystaa ahayd inay lacag la'aan tahay Turkida shaqadooda laakiin markaan u tagay waxaan ogaaday lacagtaas oo $250 iskankii kaliya computerkii oo kaliya ayay iga qaadeen oo lacag kistara oo magaalada kale intay tahay xitaa ka sii badan laakiin daawo ii soo qoreen daawadii $100 ay noqotay ayana $350 lacag ayaa iga baxday ninka awowgeeya madaxiisii computerka aan saaray laakiin information kan haystay markii hore oo ahayd Turkidu dadka lacag la'aan ay wax ugu qabtaan ay haystaan ugu tagay laakiin markaan u tagay oo aan tagayna waxaan ogaaday difference-gan ka duwan wixii aan aaminsanaa oo markii hore niyadeyda ku jiray laakiin daawadii ay soo qoreen hadda way u socotaa odagii waxa ay dib ka noqon doonto iyo sida ay noqon doonto insha Allah dhakhtarkii markay dhameysatay soo celiyo yiri markaasaan u geey doonaa insha Allah muqdisho muqdisho magaalada madaxdeena muqdisho magaalada madaxdeena dhanka kale waxaa jira isbitaallo fara badan oo ku yaala gudaha magaalada Muqdisho oo ay gacanta ku hayaan Turkiga dad fara badan oo Soomaali waxay kaga mahadcelinayaan dowladda Turkiga dhismaha isbitaalka weyn ee Digfaar oo run ahaantii marka muuqaalkiisa la arko aan loo maleeyay inaad joogto magaalada Muqdisho ama Afrikaba waxaan rabaa inaan wax ka weydiiyo isbitaalladaas waxaa kamid ah isbitaal ku yaala agagaarka Tarabuunka dugsi sare ee Banaadir halkaasi qaar kamid ah dadkii tagay oo aan ka wareystay waxay ii sheegeen in lacag laga qaaday weliba lacag aad iyo aad u xad dhaaf ah
mid ka mid ah dhalinyarada halkaasi kartay oo aan wax ku weydiiyey xilli waalidkiisa halkaas u geeyey waxa uu sheegay in laga qaaday lacag gaaraysa $350 oo $100 dawo ahaan looga qaaday $250 si qalliin ah looga qaaday marka isbitaalka halkaas ka furan ma yahay isbitaal marka hore loogu talagalay in lacag lagu qaado soo waxaa jira gacmo hoose inuu lacagtaasi hoos u qaato wallahi horta isbitaalkaas waxaa furay niman oo private ah ma ay dawladda Turkiga ma lahan laakiin waxaa sameeyay niman hay'ad oo hay'adaha Turkiga kamid ah dad shacab ah oo aanan ahayn oo hay'ad dawli ahayn xukuumi ah waay markii hore qaab waxay ku bilaabeen samfal ay ku bilaabeen وصنفالك وانوغا marka muwasasadkan xaday leeyihiin waxa laga inay isbixin waayeen markaas loo wada hoosh caafimaad adeegay hayeen in muxuu ahaayo markaas lacag ka dhigaan waa suurtagal waxa kale oo suurtagal ah in dadka sokeeya dadka Soomaalida dadka sokeeya hoosha sameeyeen waa suurtagal laakiin waa howl u baahan ogaalkayga ma ahayn lacag meeshaas ogaalkayga hadaa sheegaysa isbitaalka shifaadu yahay isbitaal meesha waxaan ku isbitaal shifa la yiraahdo ka soo horjeeday dugsar banaadir ka haduu yahay kaas wax lacag kuma aanan ogeyn waa suurtagal maadaama wixii barayfad iskiin oo sagooni loo lahaa oo dad samafalyaal ah intay wadu way lacag inay ka dhigaan waa suurtagal waa arin u baahan xaqiijin laakiin markaan ogaama ahayn laakiin mudane wasiir Soomaaliya markii hore maadaama ay ku yimaadeen si samafal ahaan markii dambe lacag laga dhigo Soomaaliya halkaas arrin isku diro marka horeba ahaa qaab ay ku soo galaan wadanka marka hore si tabarucaad ay u fiiriyaan daawooyinka iyo qalliimada kala duwan ay u sameeyaan bulshada Soomaaliyeed marka dambe lacag laga dhigo Soomaaliya ma dhihi karo arrinkaasi hay'adahaasi gaarka ah si siyaasadeed marka hore ka watay wallahi qofka bani aadamka sidiisaba ayagu waxay ku wataan ayaga u taala laakiin waxa xaqiiqo ah qofka haduu shay bilaawo shaygaasna haduu gaarsiiyo ilaa meeshii la rabay haduu wada waayo inuu fikir qaab kale uu ku wadi karo waa tahay daawadayaalkaasi waxa uu ahaa wasiiru dawlaha wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya Maxamuud Macalin Yaxye horena uu ahaa wasiir ku xigeenka ee arrimaha bulshada xukuumadda Saacid waxaana ka wareysanaynay qaabka hay'adaha iyo dawladda Turkiga ay u shaqeeyaan ku sugan magaalada Muqdisho xarunta wadanka Soomaaliya isbitaalada iyo iskuulada kala duwan ee ku yaala gudaha magaalada Muqdisho hadii ay yihiin kuwa tabarucaad iyo hadii ay yihiin kuwa lacag laga qaado waxaana qayb uu ka ahaa barnaamijkeena Muqdisho iyo maanta toddobaadkan idin kaga iimaanaya magaalada Muqdisho xarunta wadanka Soomaaliya Muqdisho 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 bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Muqdisho oo indhahooda ay ku daaleen burburka magaalada gaar ahaan wadooyinka ayaa dhankooda soo dhaweeyay dhismaha wadooyinka ee dawladda wadanka Turkiga ay ka sameysay gudaha magaalada Muqdisho Cabdidaaq Xasan Maxamuud waxaan kamid ahay dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho kuna wada tababarta waxaan aad soo dhaweynaynaa dhismaha ay ka wadaan Turkiga laamiyada run ahaantii laamiyo hore oo dhisan oo xilligii dawladii jirtay ama laamiyada soo dhisnaayeen iyo sidii magaalada u camiraan jirtay anaga ma daadeedii maana soo gaarin laakiin hadeer aad baan soo dhaweynaynaa sidii laamiyada loo dhisayo hadeer wajiga labaad bilowday wajiga hore waa laga soo gudbay wadada tiyaatarka oo kale ilaa iyo dabka hadda dhismo labaad oo laamiga lagu wado ka jiro waxaan moodaa in uu dhismo kale uu ka socdo isgoyska Soobe ilaa Brandir agas hawl kale ay ka socoto waa soo dhaweynaynaa 100% wadooyinka markii hore si ahaayeen iyo sida hadda ay yihiin waxa moodaa farq weyn oo dhaxeeyo tan kale waxaan codsanaynaa in aan lagu ekeen simooyinka magaalada balkii wadadan muhiimka oo kaliya dawladda isticmaasho waxaan kaloo aan soo dhaweynaynaa in lagu daro wadooyinka kale aan wali dayactirka u sagaarin sida wadnaha iyo sodanka ayagana in hawsha la sii gaarsiiyo insha Allah maadaama ay ka tirsan yihiin magaalada muhiimna u yihiin mid kale oo aan ku dari lahaa waxay tahay in ay jirto magaalada meelo badan oo macnaha lagu xiray nalalka sida wadadan hadda aad ku mashquulka badan ee lagu magacaabo dabka ama ay dadka ama kala mukarrama u yaqaanaan magaalada dhan dabcan way noqon kartaa saan oo kale hadii sida ayada lagu dadaalo oo macnaha ay dadkii iyo ay ka wada shaqeeyaan bulshada iyo dawladda iyo Turkiga dhamaan Muqdisho
muqdisho magaalada madaxdeena 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 sida miraha lulka muqdisho mawjadaha badweynta barnaamijka alaaba waxaa idinla socodsiiyay anigoo cabdirasaaq miro dhowre waa sawir qaadista ismaaciil maxamed muuse olrayd iyo sidoo kale farsamada cabdifatax maxamed hilowle tan intaan ku kulmayno barnaamijyada xiga ee muqdisho iyo maanta sidaas iyo nabadgelyo